السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa idin salaamay asxaabteeda sharafta iyo karaamada mudan oo meel kasta oo caalamka ka joogtiin soo dhawaada walaalahay qaali maanta waxaa noo wadaa malaygaas ujeedooyin quruxda badan maasha allah tabaaraka allah waa salamaan malaay oo si fudud oo easy ah u kariyey runtiina dhadhanka iyo macaanka waxa laga sheekeyn kara ma ahan yaa soo dhawaada isaga dhan 5 minutes aan ku karinaynaa marka sida fudud oo suubiye insha Allah ila qaybsada hadaa maanta kugu horeyso videogeyga oo janaalkeyga waa ku cusub tahay fadlan subscribe saar gambalelka frost yaa uga mid noqotid familigeena wax kastaan soo gelino oo aragtid sii share garee hadaa u bogtid asxaabtaada la wadaag wixii tala iyo tusaale qaybta commentiga noogu reeb waa mahadsantihiin dhammaantiin sida ujeediin meeshan waxaa iigu jiro fish waaye salmon fish waa kana sidaan usoo jarjaray oo yaryar dhudhubka ah size-ka saartida u jaran kartaa laakiin ani sidaan dhudhubkaan jeclaa inaan u jarto always meeshaanit waxaa iigu jiro subag waaye butter oo soo dhalaalinayo wax kale kuma jiraan waa jab oo subag ah subag lo-aad waaye butter waaye ujeediin subagii oo keliya waxaan ku shubtay baanka sidaasaan rabaa wax yar u dhalaaliyo subaga marka wax yar saas aan u dhalaaliyo asxaabteeda subaga waa kaasa ujeediin waxaan ku daranayaa fishkan maxaa la dhahaa spaceygan oo fishka loogu talagalay subaga waa kan haafanka goosta ujeediin filfil waa filfil black pepper waa qof walba suu garanaayo subagii dabka ii saaran yahay ujeediin dabkayga low waaye aad u gaaban yahay dabka waa inuu ku gaabnaadaa markastoo wax karinaysid malaygoo kaleeto iyo waxyaabaha oo dabka badan qaadanaynin waxaan kusoo darayaa spaceyga oo fishka loogu talagalay waa queen of fish aa la dhahaa bahashaan waa ujeediin lori fried fishka oo la shiilaayo loogu talagalay aad u dhadhan u leedahay dhadhan macaan maasha allah tabaaraka allah aad ka dhargeynin waaye caraf iyo spacey wax kale u baahan tahay ma jirto aniga hadda filfisha waa optional waa ku badsanooyaa filfisha dadka jeclaa ahay laakiin way ku jirtaa filfil iyo wax kasta bahalkii sheeg maraqaas miyaa spaceygaas aan isticmaalayo xawaajiga oo fishka loogu talagalay waaye waxaan isla soo saaray sida arkayseenba dabka waxaan kusoo darayaa liin dhanaan aan ku miirayaa xabad liin dhanaan ah liinta waxaan ka rabaa testi oo dhanaan oo macaan iyo siina malayga lifti ka galaysaa haddaa malayga shiirkiisa iyo nacab tahay oo kaleeto ma dareemaysid markaa liinta ku shubtid haddaa liinta ku miiratid waxa waaye dhadhankaas lee cunee subagii markuu saa igu soo dhalaalay iyo spaceygi wixii aan isku soo qasay kalarkaas kusoo baxay fishkii aan ku gurayaa dabkiisana waa dab aad u gaaban waa kusoo gurayaa asxaabta ujeediin saas lee ugu soo guraya adi saaskaa rabtid aa ka dhigan kartaa malayga markaa jajaranaysid koley ani kan aan jeclahay jajarka gabdho badan oo laalaa waxay weydiiyeen gacanta maxaa kaaga dhacay cilaana allergy ku qaaday ilaaha iga badbaadiyay gacanta dhan waa iga go'day laakiin hadda waa fiicanahay waa kaasa saasuu kusoo baxaya fishkani saas quruxda badan ugu soo guray wax yar oo cusba ahaan dusha uga darayaa cusbo waaye cusbo xataa uu leeyahay bahalkaas laakiin hadda adiga dadka oo xoogaa dhanaanka ku cuno malayga tahay oo kaleeto dhadhan saa rabtid cusbadaas le waa xayaar aan ku bibitinayay wax badan ma ahan runtii malaygan lagama hadli karo aad u macaan yahay aadna u fudud yahay kariskiisa asxaabteyda waxaan hadda ku shubayo ujeediin liin dhanaan waa dusha uga miiraayo liinta waa aniga waa ku haystaa ma fahamteen malay liinta markii uu diyaar yahay markuu karsamayo labadaba waa lagu dari karaa easy waaye waa optional adiga liinta hadaada jeclayn waa iska dayn kartaa laakiin anaga waa ku jecelnahay ma fahamteen saas usoo shiilmaya hal mar leena gedinaya mar labaad ma gedinayay malaygana saa ogtihiin karas badan ma doono runtii malaygana arkaysiin 5 minutes aan ku kariya isaga dhan yaa 5 daqiiqo adiga waa qiyaas kartaa intay tahay aad u fudud yahay waxaa kasii fiican markaa alaabtiisa intaa ku qastid aa la dhigtid xoogaa aniga ma la dhigi karin because time ma haysanin xoogaa haddaa ku qastid oo la dhigtid meel hadhow kaleeto aa oofanka ku dubatid mase maxaa dhihi jiray aasaan camalba u shiilatid waxaan ku dhahaa kaalaska arag waaye lagama hadli karo laakiin aniga hadda sidaanaan ku karsanayay sababtoo ah timeka igu yar jikadeeda xataa clean ma aha ujeediin waa soo galay hore lee ka karinaa markaas kadib aan xarbaa waxyaabaha kale inaan iska qabto meel wax lagu karinayo caruur joogaan oo yaa waa iska dareemi kartiin laakiin insha allah inaan la dadaalo waayo mar walba waa gediye hadda waxa waaye 2 daqiiqo dhinacaas u karsamayay dhinacaan kale aan soo gediyay isagana sidoo kaleeto
hadda waa kasoo bixiyeysa arkaysiin kaas kii kalan ku guraayaa qaybta ii soo hartay aan ku guraayaa isla saliidii waaye malayga markaan soo kariyey saanu kusoo baxay asxaabteeda ujeedin quruxda badan maasha allah tabaarakallah intaa haysanin ilaahay ha siiyo anagana allah noo siyaadiyo waa kana kii kala ii karsamaya isagana hal mar la gedinaya saa arkayseen sidii horeeto camal malaygana aad u fiican yahay ilmaha wax baranayo kaleeto qof kasto maskaxda iyo jirka iyo meel walba u fiican yahay caafimaad waaye malayga aa cunna insha allah wuu igu firdhaday gaaskii dhan iga halaya ujeediin fudfudfud uu leeyahay because kana aan dheereeyay dabkan iyo saliid aan ku ruxruxaayay asxaabteeda sharafta badan oo malaygeena waa kana saanu kusoo baxay waxaa waxaa rabtidaa ku cuni kartaa sandwich ka dhigan kartaa waxaa ku cuni kartaa basto bariis waxaad jeceshahay salar aa u hagaagsan kartaa qudaartii asaga isku cuni kartaa haddaa diet ku jirtid oo rabtid inaad iscaataysid runtii malaygan dhinac kasta uu kuu gelayaa cuntadana waa ku cuni kartaa keligiis xataa qado waa ka dhigan kartaa salarkaaga intaa u jarjaratid kaaliska arag waaye ama cashirta adiga doontid aad u qurux badan yaa ujeediin malay fudud oo qurux badan waaye yaa sadar maqo su'aal ka dhan maal dhihi jiray soo dhawaada janaalkeena haddaa ku cusub tahay support gareeya sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga insha allah familigeena si uga mid noqotiina mar walba waxa waaye janaalka ugu xirnaateed gambaleelka furo wixii tale iyo tusaalaha qaybta commentiga noogu reeba insha allah taladiina iyo dhiirigelintiina iyo sida wanaagsan ay ila socotiin aada ugu mahadsantihiin walaalahay qaali kii kaleeto waaye waxaan dusha uga soo daraayo xoogaa waxa waaye malayga yarkaa oo saliidda ku googo-ay akastoo mid madow noqday ujeediin zaaid u brown zaaid u noqday marka asagana waa iska bixbixinaynaa dhibaato ma laha macala subax waa ku gediye waa ujeediin dhanaankiisa iyo dheecaankiisa waaye aada u mahadsantiin asxaabtay